السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه الترمذي وابن ماجه: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. walaalayaal, in shaa allahu tacaalaa duruusta ramadaanka ee ummadeenna gaar ahaan ku hadasha afka soomaaliga, qutur ahaana degan waddanka Australia, ayaa in shaa allahu tacaalaa dhalinyarada ardayda inay u soo tabiyaan walaalahood maalin kasta in yar oo wakhtiga ka mida intaan la afurin ka hor wixii ilaahay fududeeya ee walaalahood ay kala qayb qaadan karaan waxyaabaha anfacaya dadka saa'imiinta muslimiinta saa'imiinta. maanta xadiiska ugu horeeya abu hurayra radiyallahu canhu ayaa warinaya oo ka sheegay nabigeena sallallahu alayhi wasallam haddii habeenka ugu horeysa oo bisha ramadaan, wuxuu yidhi nabiga sallallahu alayhi wasallam, habeenkaas ugu horeysa sufidati shayaatiinu, shayaatiintii ayaa la xirxirayaa, iyo wamaradatl jinni, jinniga kiisa madaxa adag oo dhibka badan leh oo caatiga ah, wagulliqat abwaabu nnaari, naarta irdaheedii ayaa la xirayaa oo la xirxirayaa, falam yuftax minha, lama furaayo naartii, baabun baabna lagama furaayo, wafutixat, waxaa la furfurayaa abwaabu ljannati, jannada irdaheedii, falam yuglaq, la xiri maayo, minhaa jannadii, baabun baab laga xiri maayo. wayunaadii, wuxuu naadinayaa munaadin, mid naadiya, wuxuu u yeerayaa mid u yeera, dadka sooman ugu yeerayaa, kulla laylatin, habeen kasta: yaa baagiya alkhayri, war khayrka kan rabow, aqbil, kaalay u kaalay, wa soo qaabil oo soo aad, wayaa baagiya ashari, war sharta kan doonayow oo raadinayow, aqsir, ka gaabso oo ka joog, walilaahi, ilaahay waxa u sugnaaday, uu leeyahay ilaahay, cutaqaa'u, kuwa la xureeyo, min annaari, naarta laga xureeyo, wadaalika, xureyntaas oo naarta la xureynayo oo allah uu ka xureynayo addoomankiisa, kulla laylatin, habeen kasta ayay ahaatay. walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan ka baryaynaa sida uu nabigeenna sala allahu calayhi wasalam uu noogu tilmaamay in mar haddii ramadaanka bishiisii ay dhalato, in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cadowga ugu daran oo ugu adag ee ilaahay noo tilmaamay, ina ashaytaana lakum caduwun, uu yidhi, in ilaahay uu nooga kaalmaynayo mar haddii bishii ramadaan habeenkeedii ugu horeysay ay dhalatay. yaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa addoomankiisa wuxuu ugu kaalmaynayaa
shayaadiintii ballanta ku qaaday inay waddada u fariisato oo ay ka xigsato khayrka marka ay doonaanna u diida shartana xaggeeda u leexisa. lidaalika ilaahi subxaanahu wa tacaala waxyaabaha dheeraadka ah ee addoomankiisa uu ku abaalmarinayo bisha ramadaan ayay ka mid tahay. waxaa kaloo allah subxaanahu wa tacaala uu ku golladeysanayaa addoomankiisa mar haddii ramadaanka bisheedii ay curato in ilaahi subxaanahu wa tacaala uu xiraayo irdaha naarta dhan uu xiraayo oo hal iridna aan laga furaynin. lidaalika aathaarta qaar ama mufasiriinta culummada xadiiskaas fasiray xataa waxay yidhaahdeen qofka muslimka ah oo dhintay, mu'minka oo dhintay, laakiin allahu subxaanahu wa tacaala oo u qadaray in bisababi dunuub ou gala dartees naarta loogu ciqaabayo, waxaadna ogtihiin in qabrigu uu yahay imaa rawda min riyaadi aljanna wa imaa xufratu min xufari nnaar. lidaalika ay dhahaan culummada mar haddii ramadaanka la furo daama irdihii naarta oo dhan waa la xirayaa, xataa mu'miniinta dhinteen ee qubuurtooda ku jirto waa laga xirayaa irdihii naarta oo la cadaabi maayo, cadaabka kuma soconayo oo bisha ramadaan hakad ayaa laga gelinayaa. jannada irideediina waa la furayaa, waxaana loo furayaa inay addoomanka ilaahay loo dhoweeyo, ay u muuqato, ay ku dadaalaan jannadaa la furay ee sahalka looga dhigay inay xaggeeda aadaan. waxaa kaloo nabiga sala allahu calayhi wasalam uu noo sheegay in ilaahi subxaanahu wa tacaala uu naadinayo addoomankiisa oo looda naadinayo, yunaadii munaadin ou naadinayo, waa daaci ila allah caza wajal uu naadinayo, uu leeyahay yaa baaqi alkhayr, siduu nabiga sheegay calayhi salaatu wassalaam. subax kasto malag ayaa dhawaaqaya, uu leeyahay allaahumma ninka wax bixiya ilaahu khayr u siyaadi, ninka wax haysta oo sadaqada aan la bixinna oo ka bakhaylana ilaahu ka halaaji. sidaa darteed naadii munaadin baa u dhawaaqaya kulla leyla, habeen kasta, yaa baaqiya alkhayri aqbal, war qofka khayrka rabow soo qaabil, qofka sharta rabowna ka gaabso. waxaa kaloo nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiiskaas noogu tilmaamay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naarta uu ka xuraynayo habeen kasta addoomankiisa qaybo ka mid ah, habeen kastana ilaa ramadaanka oo dhan, habeen kasta waxa ay addoomankiisa ay leeyihiin inuu naarta ka xoreeyo qaybo ka mid ah. ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay uu nagu daro kuwa naartiisa laga xuraynayo subxaanahu wa tacaala. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.